dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in helitaanka marinbadeed ay tahay xuquuq qaran oo sharci ah isla markaana ay tahay ajenda mideeya dhammaan shacabka dalkaasi. war-saxaafadeed toddobaadle ah oo ka soo baxay dowladda Itoobiya ayaa lagu sheegay in Itoobiya oo leh taariikh fac weyn iyo dowladnimo soo jireena ay mar hore lahayd marinbadeed balse cadaadis dibadeed iyo faragelin muddo qarni ka badan socday ay ka dhigtay dal aan bad lahayn. dowladdu waxay caddaysay in ka badan 30 sano ay Itoobiya ku qasbanaatay ku tiirsanaanta dekedaha dalalka dariska ah taasoo saameyn weyn ku yeelatay dhaqaalaha, amniga iyo horumarka mustaqbalka dalkaasi. ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa hogaaminaya dadaalo lagu doonayo in si nabad ah wadahadal iyo iskaashi ku dhisan loogu helo marinbadeed waara iyadoo la diidan yahay inay dhacdo dhibaatada colaadeed. warmurtiyeedkan ayaa sidoo kale xusay in sharciga caalamiga ah uu aqoonsan yahay xuquuqda dalalka aan bad lahayn ee ah inay si cadaalad ah u helaan marinbadeed, gaar ahaan marka ay leeyihiin dad tiro badan iyo ganacsi ku tiirsan dekado dibadeed. Itoobiya waxay sheegtay in helitaanka dekad u gaara aysan faa'iido u lahayn iyada oo keliya, balse uu gacan ka geysanayo xasiloonida ganacsiga iyo horumarka guud ee Geeska Afrika. ugu dambayn, dowladda Itoobiya waxay shacabka ugu baaqday inay mideeyaan mowqifkooda isla markaana ay taageeraan dadaalada lagu doonayo xaqiijinta arrintan oo lagu tilmaamay mas'uuliyad taariikhi